asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waan idin salaamayaa daawadayaashayda meel kastood adduunka ka joogtaan. Imika waxaan kusii soconnaa shaariqa. Maanta maalintaydu waxaan ku qaadanaynaa insha allah halkaas inan baa noo timi carabiyada guryaha iibisa. Marka waxayna la soo tusayaa guryo la iibinayo, waana soo daawanaynaa. Qaar waa la dhisay already oo waa diyaar, qaarna waxaa la dhisayaa imika loo samaynayaa 2025 ayaa insha allah la dhammaynayaa. Marka waan soo baayacaynaa maanta. Magaalada shaariqa waxaan kaga helay aad iyo aad masaajidyo aad u qurux badan ayaa ku yaala. Diinta aad bay ugu fiican yihiin, yani waa little bit strict than Dubai. Marka qof hadduu doonayo inuu imaaraadka usoo guuro insha allah waxaan kula talin lahaa shaariqa ha yimaado. Saxmad maaha, guryuhu sidaa qaali maaha sida Dubai oo kale. Imika waxaanu nimi suuqii mool yaro qurux badan bay leedahay shaariqa. Halkan aan ka quracanaynaa dabadeetana insha allah waana la kaxaynayaa. Inantana kaxaynaysa waxayna keenaysaa meesha lagu iibiyo guryaha. Waxaan soo arkaynaa kuwii oo aan la dhisin, kuwii la dhisayna insha allah wayna keenaysaa, waana soo daawanaynaa. halka dareema deeqawaan ku jecel wax lagugu deeqo daynkii kuma. Kitchen appliances, three bedroom, middle type. This is the corner type. Okay. This is the face number. Here the main entrance. This is the old phase number 7. Yes. Silk line built up only. Block 2 sold out, 3 sold out. Phase number 4 also, if you check from here, come here please. From this side, it's already sold out. The phase number 5, it's only mentioned. Okay? Big palace. And the phase number 6 will be in this side. We are selling right now in the phase number 7. This is the last phase, final phase. We have some offers till 6 bedroom. So we will put 3 bedroom. We have a 2 type, middle and corner. It will be ready after, you can say 3 years from now. Okay. James Victoria School. Exactly. We have a sport field, cycling, walking till 15 kilometers. The first thing you have is sitting area upstairs. So on behalf, for example, for the kids to stay down in the living, to stay clean, you have sitting area, you can put TV and everything. Then we have first room, master, the second room, master, and yeah, this is master room, and 2 rooms with connected washroom. So 2 connected and 2 masters. Each room has hairdressing and or room and the bathroom. Okay, perfect. Okay. The same for the second. Yeah, The entrance, the sitting, the dressing, and the toilet, the bathroom. bathroom. Okay. And these 2 rooms, they are connected. What for the kid? 3 bedrooms with the front. On behalf of the 4 bedrooms upstairs, it will be 3. Yeah. So this is a townhouses, 4 bedrooms, 2 parking, covered parking. So you have the entrance to the home. Okay. So the first entrance, you have a small corridor, taking on the right the kitchen, closed kitchen, separate. So inside you have, from inside the kitchen you will have maid room with her own bathroom. Okay? It will be the bathroom here under the stairs. So the kitchen with the bathroom. The kitchen you will have 2 windows to the garage. Exactly. Okay? So back again. Yes. Back again to the living. So directly from the door for the guest, we go directly. So you
have living area with dining area. Okay. Plus you have guest toilet. You have guest toilet downstairs. Okay. Exactly. You have the backyard, a big backyard. All the living, it's panoramic view. As you see, it's glass, all glass. Plus you will have access from the back side, because the townhouses, they are not back to back. So you will have access to the hadalkiyo deganaantu inay yahay waa waxa dareenkiyo naftada maxagari kaga doortay khayrka dugsi dhaxanta celiyo dawadayda inay tahay anigoo daldheer jiran halkan ka dareema deeqa waan ku jecel Allahumma barik, it looks so beautiful. wax lagugu deeqo daynkii kuma sharafkugu dabogalay dugsi dhaxanta celiyo dawadayda inay tahay anigoo daldheer jiran halkan ka dareema deeqa waan ku jecelahay. A full smart home system. Okay, let's go to see. Here it's not included in the townhouse. To be only with the independent villa. This is look at the nicest room size. Very modern design. waxa dareenkiyo naftada maxagari kaga doortay khayrka dugsi dhaxanta celiyo dawadayda inay tahay anigoo daldheer jiran halkan ka dareema deeqa waan ku jecelahay damcigaaga wacaaniyo dulqaadkiyo xishoodkaba waa wax lagugu deeqo daynkii kuma sharafkugu dabogalay dugsi dhaxanta celiyo dawadayda inay tahay anigoo daldheer jiran halkan ka dareema deeqa waan ku jecelahay. jacaylayatin lebaan abuurno adogaydo inta nudubkiisi muday baan ilaasho wanadkeeyo abayda sidii u dhowreye markan kulaqa ugaaso ujeeda fog baan laga afifodantan laga amaanada dhow laga when they will start schools? Monday. masjidkani wuxuu ka mid yahay masjidyada ugu waaweyn ee Sharjah. waxaa lagu dhisay 300 oo milyan oo lacagta dirhamka. waxaa ku yimaada ilaa 25,000 oo qof baa ku tukada ramadaantii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waa maalin cusub. maanta waxaanu raacaynaa boat. insha Allah cadceedu ilaa inta ka dhacaysa ilaa habeennimadii boatkaasaan saarnaanaynaa. baddaanu joogaynaa. wayna la soconaysaa, wayna soo wareejinaysaa, waan kusoo cashaynaynaa.
dareenkiyo naftada maxagale kaga dugsi dhaxanta celiyo dawadayda inay tahay anigoo daldheer jiran halkan ka dareema deeqa waan ku jecelahay damcigaaga wacaaniyo